مسؤولينta komishanka xirfadlayaasha caafimaadka qaranka Soomaaliland oo howlgalo shaqo ku jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa kormeer kala duwan ku maray goobaha caafimaadka iyo sidoo kale jaamacadda Burco qaybteeda caafimaadka gudoomiye ku-xigeenka komishanka xirfadlayaasha caafimaadka Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Doodi oo hogaaminayay wafdigan ayaa ka warbixiyay ujeedada socdaalkoodan iyo waxa uu qabsamay teamka la joognaa Health Professions Commission halka waxaanu nimi maalintii salaasadii arbaca khamiis jumca iyo maanta sabti baanu joognaa jidadaan u nimina waxay ahayd inaanu health institutionska goobaha caafimaadka cusbitaalka weyn iyo cusbitaalka manhal labada cusbitaal inaan marro iyo jaamacadda qaybta medicinka burco siirayna haddaan nahay Health Professions Commission in registration key ama diiwaan gelintii voluntary ahayd ee qofku isagu iskii u imanayay ee suurta gareynayay inay dhammaan doonto bishan aakhirkeeda sodon bisha ka dambeeya Ramadaan baa la gelayaa Ramadaan marka laga soo noqdo bisha August hadii Ilaahay ka dhigo waa waxa weeyaan voluntary registration ka baxaynaa dadku markaas iskii u imanayay compulsory bay noqonaysaa marka qofku uu soo gareeyo registration ka waxa laga rabaa qof kasta oo goob caafimaad ka shaqeynaya ama qof kasta oo institute caafimaad ka shaqeynaya inuu register yahay oo institute ka register yahay Health Professions Commission ayaa laga doonayaa hadii la ka dhigo codsi ka dhiibaya dhammaan goobaha caafimaadka barashaha noqdaan ama meel dad lagu daweeyo ha noqdaan cusbitaalada iyo meelaha la midka inay hore u gaaraan oo dhaqso u yimaadaan Health Professions Commission oo iska register gareeyaan Axmed Xuseen Xaaji Axmed oo kamid ah komishankan ayaa dhankiisa u mahad celiyay mas'uuliyiinta iyo guud ahaanba cid kasta oo ku soo dhaweysay magaalada Burco waxa iyaguna dhankooda u mahadnaqay komishanka xirfadlayaasha qaranka oo kaalin muhiim ah kaga jira dalka dhammaan mas'uuliyiinta iyo goobaha caafimaadka ay kormareen Cabsaaq Farax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.